waa dhacdo xanuun badan oo ka dhacday degmada Xamarweyne waa marxuumadii magaceeda la oran jiray Muna Cabdulaahi waa gabadh dhalinyaro ah oo meedkeeda laga soo saaray iyadoo guri ku jirta gabadhan ayaa daroogis aad u isticmaashay kadibna u geeriyootay balse gabadha ayaa daroogiska siiyay halkaan ayaa keenay booliska ayaa 4 nin gacanta ku soo dhigay gurigaas oo lagu sameeyay arin fool xun oo ay kamid yihiin sino iyo waxyaalo la mid ah gurigaas oo si weyn looga baashaalayay muusigna la shidanayay ugu dambeyn gurigii wuxuu isku bedelay inay gabadhan ku geeriyooto booliska ayaa markii hore la soo gaarsiiyay inay arin fool xun oo tumasho ah ay guriga ka socoto kadib 2 gabdhood ayaa guriga ka soo baxay markii dambana haddana way ku soo laabteen gurigii oo way galeen kadibna booliska ayaa gurigii soo galay boolisku waxay la kulmeen rag daroogis cabsan oo ka dhacsan oo meesha jiijiifa iyo meedka gabadhan lagu magacaabo Muna Cabdulaahi oo meesha yaala haddaba markii ay boolisku guriga galeen waxa kale oo ay ka heleen kiniinis iyo daroogooyin kala duwan oo guriga yaala haddaba runtii arintan waxay noqotay arin argagax leh haddaba gabadha geeriyootay ee Muna Cabdulaahi waxa la socday 2 gabdhood mid waxa lagu magacaabaa Samiiro Aadan Cabdiraxmaan midna waxa lagu magacaabaa Xamdi Ibraahim labadan gabdhood ayaa la socday gabadha booliska ayaa gacanta ku soo dhigay labadan gabdhood haddaba raggii ay boolisku gacanta ku soo dhigeen ee guriga falka foosh xun ku sameeyay ee sababta u noqday Muna Cabdulaahi inay daroogo ka dharagto kadibna ay u dhimato ninka ugu horeeya waxa lagu magacaabaa Abuukar Maye Karaama Filibiin waxa uu kamid yahay ninkanu wakiilka guriga sida la sheegay ninka kalena waxa lagu magacaabaa Maxamed Jeylaani Abdullah isaguna waxa uu kamid yahay ninkii mootabajaajta waday ee gabadha guriga keenay ninka saddexaad waxa lagu magacaabaa Abuukar Cali Maxamed haddaba ninkan afraad ee lagu soo diray isagana waxa la yiraahdaa Ciise Maxamed Cismaan haddaba raggan warkooda oo rasmi ah wali boolisku may soo saarin balse qof walba oo kamid ah waraysi gaar ah ayaa laga qaadi doonaa kadibna xogtooda oo rasmi ah ayay boolisku soo saari doonaan haddaba markaad raggan aragto uma maleynaysid inay falka noocaas oo kale ah ay sameynayaan waxay u muuqdaan rag mas'uul ah haddaba Soomaaliya waxa ku soo badanaya falalka noocan oo kale ah ee naxdinta leh asxaabtayda qaaliga waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waa inoo muuqaalka xiga insha Allah